beri dhaweyd Mareykanka tartan quraan baa lagu qabtay nationskii muslimiinta oo dhan meesha joogay intoodii badnayd baa ka soo qayb gashay waa 6 qaybood oo min 3 qof la siinayo 30 jis 25 jis 20 jis saasoo kale 6 qaybood oo qayba ay tartan galayso qayb walba 3 qof baa ka soo baxaya 18 Soomaaliyeed baa qaaday gabigeedba meeshii la isugu yimi ba saddexdii xufaada quraanka oo dhan waa Soomaali saddexdii shanta jis waa Soomaali saddexdii nusku waa Soomaali 18 Soomaaliyeed baa la siiyay hada waxaad qiyaastaa meel ummad dhan oo muslimiin isugu timi oo meel kasta koob laba saddex uu Soomaali yahay meelahaas oo kale cidiina lama wadaagto dadka xifdigeena la wadaaga waxa ka mid ah murutaanta ma dhoofaan walidalik haddaad xufaad aragto dadku culture u leh dhaqan u leh Soomaalida ka mid ah marka dadku markay arkaan raggan dhan quraanka korka ka wada akhrinaya awliya leena wada qaatay waa wada mawlaana baynu wadanay dhaka marka laga eego astaan kale way leedahay Soomaalidu oo ah asturka xijaabka maradan weyn dunida kuma badna waxa laga yaabaa inaad aragto xijaab masar yaro madaxa lagu xidhay shaadhi surwaal inta xidhantaya waxa laga yaabaa inaad aragto xijaab cabaayad yaro dheer iyo masar yara laakiin kan waa weyn inta badan Soomaalida seeta dadka kale ay ka gadayda siiba imka maghrib al-arabi muslimiinta ka yimo kale waxa arkaysaa imka iyaguna ka waaweyn Soomaalida toshay oo kale idan xaqaana waa ku caan dad aragto xijaab weyn oo meel sii socda waa Soomaali waliba waxaynu caan ku nahay guriyaha ma galna moogti dibadeen ku sheekaynaa marka Soomaalidu hadday meel magaalo 100 qof hadday degan yihiin way ka muuqanayaan meelahaas u may soconayaan in kun degayaad moodaysa waana 100 waxa degan marka dumarkeen iyo soconaya iyo nimadii soconaya waxa marka la arko waxaad badanaysaa astaantii meel walba xijaab uu maraya iyo mid gad loo maraya baa ka soo baxaya deedan waxa la soo dhareeyaa warnimankani waa wada culumo waana laga yaabaa dad yar inay noo meesha warwareegaya marka waxaan uga jeedaa waxna waa ka jiraan inay Soomaalidu waxyaabo badan la tagtay oo aan dadka kale ku badnayn مثلا جماعة كميدا Soomaalidu dadka jamaca ilaaliye kamidii waxa laga yaabaa masaajidda marka tagto magaalooyinka centerkooda la masaajidka soo gashaba 60-70% inuu Soomaali noqdo masaajid baad soo galaysaa dadka ugu badan ee tukanaya waa Soomaali jamaca ku jira salaada waa ku fiicay waliba jamaca ilaalinteeda waa ku fiicay laakiin midna waan idin sheegayaa waliye badanna waynu ugu horeynaa hadda muslimkii iyo wixii joogiye gaaladaba waynu ka horeynaa way Soomaaligu dhiiray inanka Soomaaliga markuu inxiraafo weecdo ilaa halka u dambayso gaadha magaalooyin dhan baa daragada waxa iibiya Soomaaliyeed xabsiyada tagaysa magaalo lagu oranaya 700 Soomaaliya ku xidhan dabeetana waxa laga yaabay percentka marka la eego tirada wadanka intaynu ka nahay iyo tirada xabsiga intaynu ka leeyahay wax isu dhow maaha xaqaana dadka waa uga dheeraynay walidalik xabsiyada dhalinyarada ku jirta marka la eego ama dadka ku xidhan tirada ay wadanka ka yiin kama aha xabsiga aad bay uga badan yihiin marka Soomaaligu waa qof dhiiran hadduu wanaagsanaadana wanaagiisa uu ku dhiiran yahay hadduu xumaadana xumaa uu ku dhiiran yahay saadaradeed cidda daadatayna inaguma yara oo yaanu intaan lagu sheegina inta xagga kale joogtaana aad bay u badantay ama droogayibisa ama xabsiya ku jirta ama jeelal ku jirta kuwaasina waa badan yihiin meel khatar haddaad tagto soo moogid xabashida muslimiintii u soo hijrootay in badh lagala hadhay sumacay kama عبيد الله بن جحش وكريستيان منغن زينب بنت جحش ولا شيء ولا الكيد يا عبد الله بن جحش عبيد الله بن جحش ومسلمين تسوي هجرة تمين أرض الحبشة يمي ثم تنصر وكريستيان موبي هذه صحابة عد لقى لها رأي محمد مريم سكوان صحابة هين
in wax la iskala hadhayaa waa tiro badnaan doontaa marka xag iyo xaggaba waynu ka wadnaa ilaahay si ha badbaadi